Bismillahirrahmanirrahiim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka. Weerar ku bilowday qaraxyo oo lagu qaaday ciidamada Itoobiya ee Boqol. Khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay ayaa daawan doontaan. Al-Shabaab oo weerar dhowr jaha ku qaaday xerooyinka ay admis ay baneeyeen. Iyana waa daawan doontaan. Iyo mooshin booqdaliye oo la horgeeyay baarlamaanka federaalka. Gacan ka hadal ka dhaca baarlamaanka gudihiisa ayaa daawan doontaan. qodobadiinu ku soo kordho intaan ku guda jirno barnaamij wareedkayaga ayaa daawan doontaan. ugu horeyn daawade nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran qaybta hoose ee commentiga aragtidaada qorxin inuu la wadaag markana ku soo dhawaada qodobadii hordhaca aad ku daawateen oo intaasi ka faahfaahsan. ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Itoobiya oo u diiwaan gashan howlgalka ku meel gaarka ah ee Midowga Afrika ee AMISOM iyo dagaalamayaal ka tirsan IS ayaa ku dagaalamay inta u dhaxaysa magaalooyinka Rabdhuure iyo Waajid ee gobolka Boqol ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan ADMIS ay isaga kala gudbayeen labada magaalo ee Rabdhuure iyo Waajid ay la kulmeen weeraro jidgal ah oo ay ku qaadeen xubno ka tirsan IS sida ay inoo xaqiijiyeen ila kala duwan oo deegaanka ah. Muddo ku dhow saacado ayay labada ciidan dagaalamayeen waxaana soo kala gaaray waxyeelo ay adag tahay in la ogaado inta ay gaarsiisan tahay maadaama goobta dagaalkaasi uu ka dhacay aanan ka dhaweyn dadka deegaanka. marka laga soo tago sheegashada labada dhinac iyo saraakiisha ciidamada daraawiishta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo guulo muhiim ah ka sheegtay dagaalkani, waxaa sahlaneen in la helo ila ka madax banaan oo sheegi kara inta khasaaraha uu gaarsiisan yahay. ciidamada Itoobiya ayaa isaga kala gudbaya magaalooyin ka tirsan deegaanada dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin xiliyada ay gudbayaan sahayda iyo ciidanka. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerar ku bilowday qaraxyo miino ah oo lagu qaaday kolonyo ka tirsan ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka ADMIS kuwaasi oo ku sugan gobolka Boqol. ciidankani oo ay wateen gaadiid dagaal ayaa lagu qarxiyay inta u dhaxaysa degmooyinka Rabdhuure iyo Waajid waxaana kadib xigay dagaal toos ah oo u dhaxeeya labada dhinac. wararka ayaa sheegaya in ku dhawaad dagaal socday hal saac uu dhex maray shabaabka weerarka qaaday iyo ciidamada Itoobiya waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. labada dhinac oo siyaabo kala duwan uga hadla dagaalka ayaa guulo waaweyn ka sheegtay balse ma jira ila madax banaan oo xaqiijin kara khasaaraha soo kala gaaray. xaaladda ayaa weli cakaran waxaana howlgal culus ay ka socdaan agagaarka magaalada Xudur halkaasi oo isku balaariyeen ciidanka dawladda iyo kuwa Itoobiya ee la weeraray. sidoo kale weeraro kale oo qorsheysan ayaa Al-Shabaab waxay ku qaadeen saldhig kale oo ay ciidamada dawladda iyo kuwa ADMIS ay ku leeyihiin degmooyinka Qoryooley, Baraawe iyo deegaanka Janaale oo ka wada tirsan Shabeellaha Hoose. waxaa jira weerar kala duwan oo ay ka hortageen ciidamada ADMIS oo isna ka dhacay deegaanka Beledul Amiin oo ka tirsan Shabeellaha Hoose. afyeenka ciidamada howlgalka oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa shaaca ka qaaday in ay uga hortageen weeraro abaabulan oo Al-Shabaab ay la damacsanaayeen ciidamadooda. korneelka ayaa shaaca ka qaaday in howlgalkani ay ku dileen ugu yaraan 2 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab isla markaana qayb ka ah weerarada gaadmada ah. dhammaan weeraradan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan la filayo inuu bilowdo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab kaasi oo ay ka qayb galayaan dalalka dariska la dalka Soomaaliya. dhinaca kalena haysla wararka iyaga ayaa daawanaysan markana dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada gaarka u tababaran ee danab oo howlgal miino baaris ah ku sameeyeen degmooyinka Kismaayo iyo Afmadow ay ku soo saareen dhowr miino oo laga leeyahay oo la geliyay wadooyinka magaalooyinkaasi. howlgalkan ay sameeyeen ciidamada danab waxay saraakiisha federaalka iyo kuwa dawlad goboleedka Jubbaland sheegeen inay ku soo saareen dhowr miino oo la geliyay wadooyinka magaalooyinka Kismaayo iyo Afmadow. saraakiil ka tirsan ciidanka danab waxa warbaahinta u sheegay in qaraxyada miinooyinka ay kordheen muddooyinkii dambe iyaga oo ka jawaabaya
cabashooyinka xaggooda ka timid rayidka inay u sameeyeen howlgalkani. Wadooyinka gala Kismaayo iyo magaalooyin badan oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose waxaa dhowr jeer ka dhacay qaraxyo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo soo gaaray gaadiid dul maray dhulka miineysan. Ciidamada federaalka daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland iyo askarta midowga Afrika ee ADMIS ayaa marar kala duwan sameeyay howlgallo ay ku sheegeen inay ku soo saareen miinooyin jidadka la geliyay. Danab ma sheegin ilaa iyo hadda haddii ay jiraan dad lagu soo qabtay miinooyinka ay ku soo saareen wadooyinka muhiimka u ah isu socodka magaalooyinka Kismaayo iyo Afmadow gobolka Jubbada Hoose dowlad goboleedka Jubbaland. Warkan wixii ku soo kordhay waxaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe hadduu Rabbi weyne qadaro. Dhinaca kalena xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo haatan kulankoodii lixaad ee kala fadhiga saddexaad ku leh xarunta Villa Hargeysa ayaa waxaa la geeyay mooshin degdeg ah oo keeneen 30 mudane oo ka tirsan golaha shacabka. Mooshinkan oo loo gudbiyay afhayeenka baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe ayaa ku saabsanaa in ajandaha kulanka maanta lagu kordhiyo mooshinka ku aadan la xisaabtanka iyo habsami u socodka howlaha guud ee shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Sheekh Aadan Madoobe oo furo kulanka ayaa ka hadlay mooshinka isagoo la wadaagay xildhibaanada si ay cod uga qaadaan in ajandaha lagu daro ama laga tago. Xildhibaano tiradooda gaaraysa ilaa 30 xildhibaan ayaa dalbaday in ajandaha lagu kordhiyo ajanda kale oo lagu sheegay isla xisaabtanka iyo habsami u socodka golaha, ayuu yiri gudoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe. Sidoo kale waxa uu kulanka laga aqriyay warqadda ay soo qoreen 30 xildhibaan ee mooshinka iyadoo goluhu soo hor istaagay Cabdirashiid Xidig oo sharaxay mooshinka. Mudane gudoomiye habsami u socodka maamulka golaha waxaa ka jira tabasho xoogan oo ay xildhibaanadu qabaan, sidaas darteed waxaa u muuqata in ay lagama maarmaan tahay in maamulka golaha lagu soo celiyo u hoggaansanaanta dastuurka iyo xeer-hoosaadka golaha shacabka. Dhankiisa xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xubnaha saxiixa mooshinka ayaa madasha ka hadlay waxa uuna eeda u jeediyay guddiga joogtada ah ee golaha shacabka. Baarlamaanka sharafta leh warqadda uu halkan ka aqriyay walaalkii Cabdirashiid Xidig annaga ayaan soo qornay, waxaana loo keenay warqadda ee guddiga joogtada ah iyo xukuumadda ay isku shubteen. Shaki weyn ayaa taasi naga gelisay, ayuu isna yiri Jeesow. Intaasi kadib ayaa waxaa mooshinka ka dhashay buuq xoogan iyadoo oo la isku qabtay in cod loo qaado iyo in kale, waxaana isku dhacay guddoonka iyo xildhibaanada. Dood dheer oo sababtay in kulankani uu istaago kadib ayaa waxaa mar kale cod la geliyay in mooshinka ajandaha wax ka beddelka dib loo dhigo ama isla maanta laga doodo, waxayna xildhibaanada u codsadeen in kulankooda dambe laga dhigo dooda si la isugu soo laabto. Si kastaba kulankan maanta ayaa ajandihiisa waxa uu ahaa la xisaabtanka xukuumadda, waxaana kulankani ku sugnaa wasiirka amniga Maxamed Sheekh Doodisho oo la filayay inay su'aalo weydiiyaan xildhibaanada baarlamaanka walow taasi xitaa la isku khilaafay. Ugu dambeyntiina dowladda Ingiriiska iyo xafiiska qaramada midoobay ayaa kala saxiixday heshiis isafgarad ah oo ku saabsan isku xirka arrimaha bini'aadanimada kaasi oo looga gol leeyahay in wax looga qabto dhibaatooyinka bini'aadanimada ee ka taagan Soomaaliya. Heshiiskani ayaa qeexaya bixitaanka lacag dheeri ah oo loogu talagalay baahiyaha degdega ah ee nafaha lagu badbaadinayo. Safaaradda Britain ee Muqdisho ayaa xaqiijisay sida ay ugu go'an tahay UK inay bixiso $7 milyan oo gargaar ah iyadoo loo mariyo heshiiska isafgaradka ee la saxiixay. Dhaqaalaha ayaa waxaa loo diyaariyay in wax looga qabto baahida bini'aadanimo ee degdega ah ee Soomaaliya iyo in lagu xoojiyo dagaalka UK ee taageerada dalka Soomaaliya. Safiirka UK Soomaaliya ayaa carabka ku adkeeyay saameynta ballaaran ee gargaarka bini'aadanimo ay ku yeelan karaan gobolada ay abaaruhu sida ba'an u saameeyeen guud ahaan Soomaaliya, wuxuuna cadeeyay taageerada joogtada ah ee UK ay siiso dowladda iyo dadka Soomaaliya. Isku duwaha arrimaha bini'aadanimada ee Soomaaliya ayaa sheegay in macluul ku soo foolahayd Soomaaliya la baajiyay taasi oo ay ugu wacan tahay wax ka qabashada arrimaha bini'aadanimada. Guud ahaan wanaagga qodobadii aad ka daawanayseen janalkan YouTube-kayna ku leenahay nuxurka wararka nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran oo hel warar warbixin iyo wareysiyo ku raali geliya. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan kiisa xiga waxaan idinka ka tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.